Right. So the I think this time we're going to talk of Somali. Simple reason waxay noqonaysaa waxaa la joogaa waxaa soo baxda war murtiyeed oo adiga hadda Dhuusamareeb magaalada Dhuusamareeb oo ku taal Galmudug dalka Soomaaliya ayaa shir ka socdo. Shirka marka waxaa isku wada yimaaday madaxda dowladda maamul goboleeda kuley waxaa dhacay waxay ahayd shir oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka oo yiri hal isku yimaado ayaga dhan u gambiyeen ase waxay sameeyeen shir gooni ah wada sameysadeen se ayaga arrimahooda kaga hadlaan se wax oo isku yimaadeen oo wada tashi ee ka bacdi ugu bilaayeen dowladda federaalka Soomaaliya. Marka dhibka jira waxa waaye maamul goboleeda horta waxa waaye waa fiican tahay inay isku yimaadaan ee hadlaan. Waxa waaye shacabka Soomaaliyeed meel walba uu joogo hadduu hadlaayo ana horta waa taageersanahay. Waxa waaye hadalka waa muhiim waxa anaga oo nuskee diray dagaalka sokeeyay iyo dowlad burburki iyo wixna waxa noo keenay caawa isfahan la'aanta. waa isma qulona laakiin isma fahmoono. Marka waxa waaye maamul goboleeda ba isku yimaadeen waa shireen sidii kaga hadlaayeen arrimaha doorashooyinka oo soo socoto 2021 ayay ka shiraayeen. Marka hadda war murtiyeed soo baxshaan war murtiyeedkana hadda waxa uu akhrinayo Saudiin Yusuf Garaad former Minister of Foreign Affairs oo dowladda Farmaajo and also ex-BBC waa weriye caan ah oo la yaqaano kuley hadda xamleena inuu ku biiray qolooyinkan oo mucaaradka iyo dowlad goboleedada iyo ayuu afhayeen u noqday kuley. Marka waxaan rabnaa inaa tartiib u dhigeysano oo falanqeyn ku sameeyno shirkii murtiyeedkii ku soo baxay dhammaan madaxdii dowlad goboleedada. Marka waxa arkaynaa adiga murtiyeedkan inuu yahay mid anfacayo shacabka Soomaaliyeed ama mid oo u ah khaas danaha siyaasiyiinta Soomaaliyeed. kuley waa arki doonaa. Marka Mr. Yusuf Garaad ku soo dhawow anana waxa waaye cajalka poosa ku taawaneena waana falanqeyneena inta falanqeyn karno ilaa ay sii soconayso 15 daqiiqo oo cajalka ku soconayo waa ku soo dhawaada. Marka madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ah madaxweynaha dowladda Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha dowladda Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni, madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane dadka ma wax shoodaan madaxweynayaal kulligood madaxweynayaal hadday noqdeen yaa shacab noqonaya. Marka waxa waaye waxyaabaha shacabka Soomaaliyeed dhalinyarada mustaqbalka ay u baahan yihiin inay ka fikiraan kulli dadkan oo hadda Yusuf Garaad oo dhahayay madaxweynayaal waxa waaye gubernatorial waaye laakiin waxay iska jeclaadeen magaca madaxweyno because waxa waaye Soomaaliya dhan madax iska wada ah. Marka asiiwana Mr. Yusuf Garaad halkiisa Axmed Maxamed Islaan ayaa waxay shir madaxeed wada tashi ah isugu yimaadeen magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb. Shirka ayaa si rasmi ah u furmay 11 bisha Luulyo socdayna ilaa 12 Luulyo 2020. ugu horeyn shirku wuxuu uga mahadcelinayaa dowladda iyo shacabka Galmudug soo dhaweynta iyo martigelinta shirka wada tashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. madaxda dowladaha ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dhinacyada siyaasadda. meeshan ugu waxa ka maqan dowladda federaalka waxay u shirayaan sidee iskaashi la sameeysan lahayn dowladda federaalka oo meesha dhan ka wada maqanbo. Marka waxa waaye waa dhaqan loo baahan yahay in si fiican loo eego hadda Soomaaliland nimankan oo dhan madaxweynayaal haday yihiin yaa madaxweynaha guud noqonaya. Marka waxa waaye one very important thing that shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada mustaqbalka ay ka sii fikiraan taas. waayahay Mr. Yusuf Garaad noo sii basheekada
amniga dhaqaalaha iyo xoojinta geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya dood iyo wadaxaajood dheer oo shirku ka yeeshay arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ka soo baxay kow in la xoojiyo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha in doorashada waa qodobka labaad in doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 2020 iyo kow ay ku dhacdo waqtigeedii aysan imaan wax muddo kordhin xileed ah saddex waxa waaye waa koley taas ku socotaa dowladda federaalka oo la hadalhayo in kasta ayaga imaan dhexdaas ay dhaheen anaga waxaa ra-iisul wasaare xasan cali kheyr oo yiraahday doorashada waa inay waqtigeeda ku dhacdo madaxweynahana isla marka oo statement sii dabcijiyo oo leeyahay doorashada waa inay ka dhacdo waqtigeeda marka haddii hadda uu leeyahay Yuusuf Garaad asna doorashada waa inay ku dhacdo waqtigeeda oo go'aankaas ku yimid madaxweynayaasha maamul gobolada maxaa cusub kale aanu sheegaysiin hadana shacabka Soomaaliyeed ku saddexdiina waxa waaye isla heestii ku dheelowsiin si qaladna waa u dheelowsiin yani waa out of context yani waxa wallahi kore wax midii kale aniga waxa rabaa inaad toos oo calaameeyo shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ka taagan dowladnimadeena iyo siyaasiyiinteena Soomaaliyeed waxa waaye kuligoodu waxa waaye wax dan shacabka u fiirinaya ma jirto qof walba kursigeeda gaarsanoosa kuligoodana waxa waaye dad wada Suudan taay bartay oo diidan inay Suudan taayaas iska siibaan ay ku noqdaan maxbuustooda marka waxa runta laga hadlo anyways Yuusuf Garaad no sii wad hadalka waxa dheeysay waana ku maasantaa let's keep going sida ay sheegtay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo waqtigeedu ku dhacda sida darteed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee 2000 iyo doorashada dalka ee 2020 waxa waaye wuxuu dhahay Yuusuf Garaad ha isku yimaadaan madaxda dowlad goboleedada iyo ra'iisul wasaaraha iyo dowladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida la kaga hadli lahaay arrimaha doorashooyinka Mr. Yuusuf Garaad wuxuu iloosan yahay isbuuc ka hor ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo kulli iskugu wacay maamul gobolada soo dhahay hal isku yimaado hal laga hadlo arrimaha doorashooyinka mid yimaadana ma jirto kuwan hadda xaleeyihiin doorashada waqtigeeda ha ku dhacdo waxaan u gooyeen isbuuc ka hor oo madaxweynaha yiraahday hal isku yimaado marka waxa aan fahmi la'ahay madaxdan oo maamul gobolada ma ayaga waqti kordhismen dowladda u doonayaan ama waa ka soo horjeedaan hadee ayaga doonaynin waqti kordhis in loo sameeyo dowladda federaalka Soomaaliya maxay aysan u alaali waayeen schedule-ka oo mar walba dowladda federaalka Soomaaliya soo saarto why ay schedule ka duwan ee dowladda federaalka u soo bandhigaan madaxda maamul gobolada waa su'aal u fiican marka aan meesha waxay soo muuqatay in kuligooda madaxdan every single kulli siyaasiyiintan ee ayaga dhan isla wada fahamsan yihiin ciyaartan la rabo in lagu jahwareeriyo oo loo dan leeyahay in lagu kor socdo waa shacabka Soomaaliyeed waa aniga iyo adiga kule Yuusuf Garaad halkiisa sii wato waxyaabaha saaran agta taabto anyways let's keep going shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug shirku wuxuu u mahad celinayaa taageerada beesha caalamku u mahad celinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya wuxuu u mahad celiyay beesha caalamka
wax oo u mahad celinayay oo ku mahad celiyay ma jirto. waxaa ku dhahayay shacabka Soomaaliyeed, wuxuu dhahay waxaa u mahad celinayaa beesha caalamka sida noo taageereen, not shacabka Soomaaliyeed. marka waxa waaye shirkan waxa waaye shir ee beesha caalamka ee wadato eena rabto in dowladda federaalka iyo maamul goboleeda isku wada dhaco oo wadankan khilaaf dagaal sokeeya mar labaad oo ka bilaawda ayaa la doonayaa Soomaaliya. marka aan waxaa ku tali lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed, don't be heartbroken, yaana niyad jabin. waxa waaye 500 member club wax la dhahayo jiro, 500 oo dalkan xoog ku haysato, waana 500 wajiyadooda meeshaan ka wada muuqda iyo wasiiradooda iyo wasiirka xogoonadoda iyo xildhibaanadooda. waa 500 oo dalkan xoog ku haysato, ma fahamteen? marka I don't know where meesha shacabka Soomaaliyeed meel loo wado oo wixii dan loo leeyahay, laakiin waxaa meeshaan ogaanay in fashil weyn uu soo socdo, shacabka Soomaaliyeedna la rabo in lagu kordanaysto. marka waxa waaye taasana la fahmo. waxaana leenahay anaga haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed doorasho xal arabnaa iyo qof iyo cod ah, saa kulligiina meeshaan oo idiga wasaari lahayn. haddii waxaanu dhan waa dhibsanay, wax aynu dan leeyihiin ma jirto. shacabka Soomaaliyeed waa inuu daniis ka fikiro, waxaana rajeynayaa inaan fahmi doono waxaas oo dhan. maanta mar inaan waqtigu nigu dheeraado, kulay waxa xiraa yaro inaan iga taabto. marka next episode ayaanu ballan ah. Please don't forget to like, comment or subscribe, and I'll see you guys all on the next episode. Thank you guys for showing up.